maalmo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada muqdisho ay samada isku shareertay dhinacyo badanna ay siyaabo kala duwan uga hadleen ama u wariyeen waxaa bilowday 48 saac ee lasoo dhaafay wadahadallo yoolkoodu ahaa in xal waara laga gaaro arrimaha dhinacyadu ay isku hayaan marka loo eego dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale midowga musharaxiinta oo xubnaha ugu badani ay ka soo jeedaan goobka Muqdisho dadaalka waxaa garwadeen ka ahaa dad kala duwan oo Soomaaliyeed maalmo kadib 19 bishii February ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka injineer Maxamed Xuseen Rooble waxa uu bilaabay dadaallo ku aadan xal loo helo xaaladda magaalada Muqdisho iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dhinacyadu waxa ay muujinayeen garowshiyo iyo ugu yaraan in la kulmi karo la iskuna soo dhawaan karo habeennimadii 19 bishan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaruhu dalbaday inuu la kulmo xubnaha guddiga midowga musharaxiinta oo ay u horeeyaan madaxweynayaashii hore laakiin diidmo ka timid dhankooda ayaa ugu dambayn sababtay in rasaas laga maqlo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho taas oo lagu eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ku riday xubno badan oo ka mid ah midowga musharaxiinta oo doonaya inay qabtaan banaanbax ay ku dalbanayaan doorasho xor iyo xalaal ah hadda kulankii ugu horeeyay ayaa dhex maray dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu ka joogo ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble ayna ku weheliyaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug waxa ay la qaateen musharaxiinta madaxweynenimada doonaya ee midowga musharaxiinta wada hadallo qaatay saacado dheer markii ugu horeysay si toos ah ay dhinacyadu isku hor fariisteen doodda xoog leh waxa ay dhex martay xubnaha musharaxiinta qaarkood iyo ra'iisul wasaaraha waxayna aad uga doodeen arrinta doorashada ku saabsan ka qaybgalayaasha qaarkood waxa ay noo xaqiijiyeen in kulanka aan waxba la isku harin xagga doodaha si adagna dhinacyadu ay isugu gorfeeyeen arrinta ku saabsan doorashada ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay midowga musharaxiinta in saami ahaanta kuraasta beeshooda ee nidaamka 4.5 uu isagu ku fadhiyo isla markaana uu ballan qaadayo inuu saxo waxyaabaha khaladaada oo ay tabanayaan musharaxiinta waxa uu sheegay in degdeg loo fulinayo dhammaan heshiisyada doorashooyinka xubno ka mid ah dowlad goboleedyada waxa uu ku eedeeyay inay doonayaan in waqtiga dib loo rido ama la waraaqiyo taas oo uu ku sifeeyay inay tahay mid looga soo horjeedo hanaanka dowladnimada ee Soomaaliya sida aan ka soo xiganay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka 3 qodob oo ku wajahna arrimaha dhinacyadu ay isku hayeen ayaa la rumaysan yahay in horumar wanaagsan laga gaaray waxa ka mid ah in guddi baaritaan loo saaro dhacdadii 19 bishan ka dhacday Muqdisho lana ogaado cidda mas'uuliyadda lahayd guddigu waxa uu noqon doonaa mid madax bannaan oo baaris ku sameeya doorka xukuumadda iyo musharaxiintuba ay dhacdadaasi ku kala lahaayeen halkan waxaa ku duugan in horay dowladdu ay ugu eedeysay sargaal hore oo ciidan inay meesha ka sheegeen daljirka dahsoon weeyaan in dowlad aysan jirin isla markaana ay weerar arbushaada ku qaadeen ciidanka amniga 2 in banaanbaxa hadda qorshaysan ee Britain Jimcaha la cilaamiyay dib loo dhigo sababta la xiriirta arrinta ammaanka iyo cudurka COVID-19 arrintani musharaxiinta waxa ay u tahay mid weyn oo dhinacooda haddii ay cadeeyaan ama qaataan ay ka dhigan tahay in guuldarro siyaasadeed ay ku tahay maadaama ay doonayeen in ugu yaraan awooddooda ay muujiyaan ayna tabayeen in jamcihii hore dhankooda goolkulaad lagu lahaa haddii musharaxiintu ay aqbalaan qodobada ka imid dhanka xukuumadda ee saddexda waxa ay ka dhigan tahay fiiladu inay iska dejisay kar adag oo siyaasadeed sidaas oo kalena cub ay kaga dhigtay qaar ka mid ah xubnaha dowlad goboleedyada oo aad uga warwareegsanayay ka qaybgalka kulan lagu qabta Muqdisho kulanka laftarkiisana waxa ka soo baxaya warar sheegaya in hadda magaalo kale loo wareejiyay dhinaca kale waa in wadajir xukuumadda iyo musharaxiintu ka wada shaqeeyaan banaanbax nabdeed oo lagu qabanayo goob kale mucaaradku iska fogeeyaan ciidamada tirada badan iyo cid kasta oo ka soo horjeeda nabadda una soo bandhigaan aragtidooda si xor iyo dimuqraadiyeysan tallaabadani haddii ay mucaaradku aqbalaan waxa ay ka dhigan tahay mid muhiim u ah wadajirka dowladnimada Soomaaliya laakiin qodobka dhinacyadu aysan si fudud isugu fahmi karin waa in musharaxiintu ay qayb ka noqdaan shirarka qorshaysan
ee looga hadlaya dhammaystirka hannaanka doorashooyinka ee dalka. taasi fiila Soomaaliya ayaa loo arkaa inaysan aqbali karin maadaama door iyo saxiix hadda aysan lahayn xubnaha u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. sidaasoo kalena kudladda hadda ka asaasan magaalada Muqdisho ay jiraan musharaxiin badan oo aan qayb ka ahayn. gudaha musharaxiintu la kulanka ra'iisul wasaaraha ayay u muuqdaan inay ku kala qaybsan yihiin. waxay u muuqdaan inay ka biyadiisan yihiin in wada hadal la furo waqtigan.